markale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horey ugu xirnayna ku soo biir waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijkii la tabinaya soo saaray ayaa inagu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe Mawlid mahadsanid maxamed maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisadaha iyo dhiilada colaadeed ee dib uga soo cusboonaatay gobolka bariga dhexe kadib weerar iyo weerar celis ay isweydaarsadeen Iiraan iyo Mareykanka saacadihii la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u muuqday inuu ka careysan yahay duqeyn culus oo Iiraan ay ku qaaday saldhigyada Mareykanku ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait ayaa sheegay in heshiiskii isafgaradka u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan uu dhamaaday isagoo xusay inuusan mar dambe doonayn in wax heshiis ah uu la galo Tehran Trump ayaa hadalkan sheegay xilli kulan uu la qaadanayay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte intii lagu jiray shir madaxeedka 36aad ee gaashaanbuurta NATO oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee caasimadda Turkiga ee Ankara isagoo ka hadlayay heshiiska isafgaradka u dhaxeeyay Washington iyo Tehran Trump wuxuu sheegay in uu aaminsan yahay in heshiiskaasi uu dhamaaday Trump ayaa si adag u dhaliilay madaxda Iiraan waxaana uu ku tilmaamay sida hadalka u dhigay dad xun oo jiran isaga oo sheegay in uusan doonaynin in uu la macaamilo waxa dalkaasi maamulo dad jiran naxariis daran oo rabshad wadayaal ah haddii ay heli lahaayeen hub nuclear ahna waa ay adeegsan lahaayeen aniga ahaan arrintu waa dhamaatay ayuu yiri Trump waxa uu sheegay in uu la hadli doono ergada wadaxaajoodka Mareykanka si loo joojiyo wadaxaajoodada Iiraan isaga oo ku sii daray intaasi aragtidiisa ay tahay in la macaamilka hogaamiyaasha Iiraan ay tahay mid waqti lumis ah oo ay yihiin sidoo hadalka uu yiri beenaalayaal hadalka Trump ayaa yimid wax yar uun kadib markii taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM uu xaqiijiyay weerar isdaba joog ah oo ka dhan ah Iiraan isagoo tilmaamay in jawaab ay u ahaayeen weerar Iiraan ay ku qaaday 3 markab oo ganacsi oo gooshayay marin biyoodka Hormuz ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa dhankooda waxay shaaciyeen inay beegsadeen 85 goobood oo Mareykanku uu ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait iyadoo looga jawaabayo weerar lagu sifeeyay kuwa gardarra oo Mareykanku uu ku qaaday dhulkooda isla wararkan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Bakhaar Khalibaf ayaa si koololo dhaleeceeyay Mareykanka isaga oo ku eedeeyay in uu jabiyay heshiiskii is-afgaradka ee u dhaxeeyay labada dalba Khalibaf waxa uu sheegay in jabinta heshiiska ay kamid yihiin arrimaha la xiriira marin biyoodka Hormuz dib u soo celinta cunaqabataynta saliidda Iiraan weerarada lagu qaaday koonfurta Iiraan iyo sii socoshada weerarada military ee Israa'iil ay ka wado Lebanon qoraal oo ku daabacay bartiisa bulshada oo u muuqata inuu u jawaabayo Trump Khalibaf waxa uu ku yiri xilligii handadaada iyo baada waa dhamaaday meelne kuma gaarsiinayso annaga ma jilicsanaanayno ayuu yiri war kale oo arrimahan la xiriira wasaaradda korontada ee dalka Kuwait ayaa sheegtay in dhowr qad oo koronto gudbina ay howlgab noqdeen kadib markii ay waxyeello ka soo gaartay firirka burburka gantaaladii Iiraan ay ku weerartay dalkaasi wasaaraddu waxay xaqiijisay in dhacdadani aysan saameyn ku yeelan sii socoshada adeegga korontada iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay durbo bilaabeen dayactirka qadadka waxyeelladu ay gaartay wararka xaaladan aynu ku sii soconay wakaalada wararka ee Faris ayaa waxay sheegtay in kormeerka dhaqdhaqaaqa maraakiibta uu muujinayo in uu dhammaan maraakiibtiisa ka gudubtay marin biyoodka Hormuz ay isticmaaleen marin ay Iiraan ay u cayimtay wakaaladu waxay intaas ku dartay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan IRGC ay weli digniina isgaarsiin u dirayaan maraakiibta doonaya in ay maraan marinka Oman iyagoo gudigaya in ay raacaan oo kaliya wadada ay Iiraan ay tilmaantay sidoo kale Faris waxa ay sheegtay in xogta dayax gacmeedyadu ay muujinayso in booyad shidaal oo laga leeyahay dalka Hindiya dib loogu celiyay marinka Hormuz dhinaca kale madaxa hay'adda badaha adduunka ee IOM Arsenia Dominguez
ayaa sheegay in ku dhowaad 6,000 oo badmaaxiin ah ay weli ku xayiran yihiin khaliijka xilli uu ku baaqayo in la muujiyo isxakamayn buuxda iyo in xiisadda la dejiyo. Dominguez ayaa cambaareeyey weerarada labadii maalmood ee lasoo dhaafay lagu qaaday dhowr markab oo gooshayey marinbiyoodka Hormuz. weeraradan khatarta waxay mar kale badmaaxyada aan waxba galabsan gelinayaan halis weyn ayuu yiri kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inay soo idlaatay heshiiskii xabad joojinta ee Iran lala galay. saamaynta iska horimaadeedan ayaa waxay sababeen in qiimaha shidaalka adduunka sare uu u kacay in ka badan 5% kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Iran uu dhamaaday kadib weeraro cusub oo ka dhacay bariga dhexe. fuustada shidaalka qayrin ayaa waxay kor u kacday 5.3% iyada oo gaartay 78.9 halkii fuusto oo lacagta dollarka Mareykanka ah. war hadda soo dhacay xogayaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa baajiyey safar maanta uu ku tagi lahaa Israa'iil sida uu xaqiijiyey mas'uul Israa'iili ah oo la hadlay warbaahinta gudaha. Hegseth ayaa la filayay inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inkastoo aan la shaacin ajandaha kulanka. mas'uulka Israa'iiliga ma uusan sheegin sababta safarka loo baajiyey, balse arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay dib u soo cusboonaadeen isku horimaadyada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran. wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in safarka qayb ay ka ahayd arrimo la xiriira xiisadda ka dhalatay qorshaha Mareykanka ee iibinta dayuuradaha dagaalka ee F-35 oo la doonayo in laga iibiyo Turkiga. shir madaxeedka NATO ee maanta ka furmay qasriga madaxtooyada ee magaalada Ankara ayaa lagu soo qaaday si weyn arrimaha Ukraine. waxaana lagu soo waramayaa in madaxdii halkaasi ka hadashay intooda badan ay muujiyeen in arrintan loo baahan yahay dagaalka in la soo gabagabeeyo. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shirka martigelinaya ayaa waxa uu sheegay in la joogo xilliga dagaalkan la soo afjari lahaa. madaxweynaha Ukraine ayaa isna wuxuu ka dalbanayaa madaxda wadamada NATO inay cududooda isugu geeyaan sidii Ukraine loo taageeri lahaa. waxaana la filayaa goor dambe oo maanta in wada hadal ay yeeshaan Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. wixii arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. wahagaag daawadayaal goordha waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe si gaara dagaalka Mareykanka iyo Iran oo dib u soo laba kacleeyay, balse aynu ku hakano qadar xaysiis. sida aan idinkula soo wadaagnay qaybta hore ee barnaamijka, waxaa burburay heshiiska Mareykanka iyo Iran kadib markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay. haddaba waxaanu eegaynaa falanqayntan ku eegaynaa marxaladaha ku geedaaman burburka heshiiska. mawlid, sida muuqata xaaladda dagaal ayaa ay u socotaa. maxaa lagu fasiray hadalka Trump ee ah in uu dhamaaday heshiiskaas? maxamed, hadalka Trump horta siyaabo kala duwan baa loo fasirayaa. waxaynu ka eegaynaa dhowr qaybood. dhanka siiqada diblomaasiyadda iyo hadalka dadka mas'uuliyiinta ayaynu dhan ka eegi doonaa. dhanna waxaynu ka eegaynaa macnaha uu xambaarsan yahay hadalkan iyo xaaladda wuxuu uga macno yahay. aan ku hormarinka arrintan waxay uga macno tahay xaaladda waxay uga macno tahay horta heshiiskii inuu dhamaaday. dabcan Iran war rasmi ayaa laga sugayaa oo ka soo baxa dowladda waddanka Iran marka laga tago fariimahan baraha bulshada ay ku qoreen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waddanka Iran. weli war rasmi ah oo dowladeed oo heshiiskii inuu dhamaaday sida Mareykanka dhankiisa ka soo yeeraysa iyo xaaladdan Iran kama soo bixin. sidoo kale dhanka ergadii wada xaajoodyada ku hawlanaa gaar ahaan Qatar iyo Pakistan iyagana waxba nagama hayo war ah. marka dabcan waxbaynu sugi doonaa soo bixi doonaa. dabcan Iiraaniyiinta sida looga bartay uga kici maayaan madaxweyne Donald Trump hadalkan ka soo yeeray. Trump warkiisana dabcan dadka dhaliila waxay sheegaan in wax walba laga filan karo. suurtagal waxaa baa leeyahay hadalkaasi uu leeyahay heshiiskii waa dhammaaday iyo hadalladan u jeedinayo dhaliisha madaxda waddanka Iran. waxaa leeyahay waxaa suurtagal ah inaysan saacad ka hor qorshihiis ugu jirin. shir jaraa'id baa socday isaga iyo waxaa fadhiyey meel madaxa NATO Mark Rutte. waxaa laga wada hadlayay arrimo fara badan.
wuxuu aad u dhaliilayay Trump xilligaasi mas'uuliyadda wadamada NATO ayuu aad u dhaliilayay gaashaanbuurta NATO oo uu ku lahaa waxba noomaysan qaban wuxuu kaloo aad u ammaanayay xogayaha gaashaanbuurta NATO Mark Rutte uu leeyahay isagu waa nin fiican laakiin wadamada xubnaha ka ah NATO ayaa waxay yihiin dad aan waxba ahayn oo aan isku haleyn karin marka inaynu ka sii mid ahano oo lacag aynu bixino dooni mayna ayuu ahaa hadalkiisu markii hadalkaasi uu soo gabagabeeyay ayaa gabar waxay weydiisay su'aal ahayd isku horimaad yaa dhacay ma waxay kula tahay inuu dhamaaday heshiiska Iiraan afka loo geliyay asana isla markiiba uu qaatay wuxuu yiri aniga sida ila tahay aragtidayda heshiiskaasi waa uu dhamaaday kadibna wuxuu aad u weeraray madaxda wadanka Iiraan marka intaan u iibaan marka luqadda diblomaasiyadda si guud horta marka loo eego Mareykanka waxay u muuqataa in aysan u cutamayn waxa socda dadka qaarkood waxay leeyihiin oo qobarada arrintan ka hadlaya Mareykanka waxa dhici karta 14 qodob ee Iiraan uu ka aqbalay inuu ku degdegay oo uu arkay waxyaalo badan oo san liqi karin oo Iiraan siinaya guul aad u ballaaran dad badan waxay leeyihiin Trump muxuu sugayay ilaa Iiraaniyiintu way ku adkeysanayeen ilaa iyo bishii Abriil intii wada xaajoodada ay socdeen qodobadan mid ka mid ah qodobka ugu muhiimsan wuxuu yahay arrinka marinka Hormuz oo la leeyahay Iiraan ayaa lagala tashanayaa qaabka miinooyinka loo saarayo iyo qaabka loo mari doono Iiraaniyiintu marka waxay taagan yihiin sidii qodobka shanaad lagu xusay wax ka baxsan ayaa meesha ka socda waayo waxa la rabaa in la sameeyo wadiiqo kale oo aan hayn wadiiqadii aan ku heshiinay inaga oo nala kala tashanna meeshan cid mari karta marjito Iiraan marka waxay ka cabsi qabtaa laba arrimood waa tan koowaad in marinkan Hormuz sidii caadiga ahayd ku soo laabto maraakiibta dagaalka ay mari karto cidii doonta ay mari karto maraakiibta Mareykanka kuwa Israa'iil kuwa wadamada ay ku tilmaamtay cadowga inay yihiin say doonaan ay u mari karaan in saldhigadii Mareykanka ee ku yaal wadamada Khaliijka ka soo bilow Iraq Kuwait Bahrain Qatar Sacuudiga Imaaraadka Carabta in loo isticmaalo dibudhiskooda marinkan marka waxay noqon kartaa arrin si caadi ah iskaga soo laabata Iiraanna sida cid walba ay sheegayso oo ka mid yahay madaxweynihii hore wadanka Ruushka iminkana ah gudoomiye ku-xigeenka golaha amniga qaranka Dmitry Medvedev wuxuu leeyahay Iiraan waxay gacanta ku haysaa nuclear karsina waa marka Hormuz Iiraan marka ma doonayso waxa kaliya ee Mareykanka xaniyaha ay ku hayso ama dhuunta ay ku dhigan tahay ama cunaha ay ku dhigan tahay inay madcala ku sii dayso waa arrinka marka marinka Hormuz qorshuhu muxuu ahaa 60 maalmood gudahood in laga shaqeeyo sidii miinooyinka loo saari lahaa sidii arrintan ay ku imaan lahayd hab wada hadal ah dekedaha Iiraan loo furi lahaa shidaalka Iiraan loo fasixi lahaa intaas marka meesha way ka baxaysaa sida hadda muuqata Iiraan marka waxay doonaysaa miinooyinkeena inaan la saarin si ay ugu gorgortanto gataaladeeda iyo bambaanooyinkeeda iyo miinooyinkeedana ay haysato oo xilliga doonta ay weerari karto maraakiibta isku dayda inay amaraan uga gudbaan marinka Hormuz dhinacaas marka waa waxay ka macno tahay luuqadan uu ku hadlay madaxweynaha Mareykanka aanu imaadna arrinta dhanka diblomaasiyadda oo cid walba ay la yaaban tahay heshiiskan markii la gaarayay bishii June bartamaheedii aad buu amaanay madaxweynaha Mareykanku madaxda Iiraan wuxuu yiri dadkii xaq jiriinta ah wasiir dalka uu dhigay ee madaxa adka ee dhigi cabinta ah way dhinteen hogaamiyaal waxa soo haray la fahmi karo lala macaamili karo lala heshiin karo maanta muxuu leeyahay waa dad shaydaan ah waa dad xun waa beenaalayaal waa khiyaanoolayaal waa dad dadkooda laaya waa dad sharwadayaal ah laba asbuuc ka horna muxuu lahaa dad la fahmi karo oo ku fiican wada xaajoodka ayaa Iiraan hadda hogaaminaya marka madaxweynaha Mareykanku ma shalay buu qaldanaa mise maanta qaldanaa waxay u baahan tahay marka su'aashaas inay weydiiyaan saxafiyiinta fursadda u heli kara madaxweynaha Mareykanka oo aysan kala gaban oo yiraahdaan shalay sidaasaan lahayd maantana sidaan baan leedahay kee qaadanaa xagee ku raacnaa timahaga xagee dhinac isugu raaci karaan su'aalahaas kale marka baa loo baahan yahay in la weydiiyo madaxweynaha Mareykanka laakiin waxay u muuqataa xaaladdu inay faraha ka sii baxayso ogartay marka ma la oran karaa hadalka Trump iyo jawaabta Iiraan in dagaal saddexaad oo jeestay ayay ka macno tahay intaanan maxamed u tagin
jawaabtaada qaybta ugu muhiimsan oo dagaal miyaa loo socdaa arrinta diblomaasiyadda aan ku laabto saaki arrin cajiiba dhacday madaxweynaha Mareykanka hal saac ayuu ka soo daahay shirkii madaxda NATO 32 wadan ayaa shirayay 31 madax ee kale madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha iyo hogaamiyaasha kale ee matalaya wadamada NATO shirkay fadhiyeen hal saac ayaa miiska wareegga asaga la sugayay hadda ka horna way dhacday shir waxa jiray G7 ay ku lahayd wadanka Faransiiska sidaan kale ayuu soo daahay saacad kadib marka waa taqaanaa qofka markuu soo daaho waa la wada fiiriyaa asagoo marka kursigiisa u socdo inuu fariisto raba ayuu wuxuu yiri aniga weyninka madaxda ah in la isugo waa loo baahan yahay dadkan waa dad kula siman umateedi madaxweyne cid walba madaxweyne ay wadankeeda ka tahay G7 waa wadamo siman waaye arrinta marka waxay noqotay arrin lala yaabay maantana sidoo kale dhacday saacad ayaa la sugayay marka dad badan oo madaxweynaha Mareykanka eedeynaya waxay leeyihiin waa nin ka caradan si hadalka u dhigaan diblomaasiyadda xitaa qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa waxay leeyihiin inuu hogaamiyo Donald Trump oo kale oo si hadalka u dhigayaan ceeb bay ku tahay dalka Mareykanka dabcan wayna ka hor qabanaa arrintii koobka adduunka xitaa dhacday ciyaartooygii gool dhaliyaha ahayo markii kaarka casil la siiyay ciyaartii Bosnia ee Mareykanka ee la ganaaxay ee ahayd inuu maqnaado ciyaartii Belgium in isaga laftigiisa intuu la hadlay madaxweynaha FIFA uu ku yiri ma ahayn kaar cas waxaan doonayaa in ciyaartooygaas uu ciyaaro oo FIFA hadda dhiiqa ay ku jirto oo markaasna loo ogolaaday inkastoo laakiin laga badiyay oo si xun loo garaacay Mareykanka lagana saaray tartankii haddana dadka Mareykanka xilligaas aad bay ula yaabeen waliba qodob ka mid ah qodobada xeerka FIFA ayaa waxa uu dhigayaa haddii dawladdu ay soo faragelisay xiriirka kubadda cagta in laga mamnuuco gebi ahaanba xiriirkaasi FIFA marka waxay ahaydba iska dhaaf Mareykanka in loo fasaxay ciyaartooyga waxay ahayd sida ay sheegayaan dadka arrimaha qaanuunka yaqaana gaar ahaan ciyaaraha in Mareykanka laga mamnuuca lagana saaro tartanka ayay ahayd laakiin meesha waxa fadhiya madaxweyne leh cid iga badaysa ma jirto yiri kubadda cagta kaar casmays ahayn buu yiri ciyaartooyga waxa la siiyay muusan istaahilin buu leeyahay maantana waynu arkaynaa arrinta diblomaasiyadda marka waxaan ku keenay arrintaas waxa weeye xilligaas dad badan oo Mareykan waxay lahaayeen war ninkan inuu hogaamiyaa baraha bulshada ku qoraya dadka caadiga ceeb iyo fadaaxay nagu tahay dabcan maantana wax dhaca waynu arkaynaa arrinta marka waxay noqotay arrin halisa aanu imaada marka qaybta kale xaaladdu waxay u muuqanaysaa dagaal dabcan Iiraaniyiintana sida ay uga jawaabeen oo degdeg ah weerarka waxay ahayd arrin la yaab leh Mareykanku duqeyntan xalay uu qaaday waxay ahayd duqeyntii ugu xooganayd tani markii la gaaray heshiiska xabajoojinta 8 bishii Abriil dhowr weerar baa dhacay laakiin weeraradu way ka koobanaayeen laakiin holac iyo uuro iyo burbur xoog leh ayaa ka dhacay dekada Sirik iyo sidoo kale dekada Badar Abbas Iiraaniyiintu waxay leeyihiin walow meelo military la weeraray hadana goobaha la weeraray waxay ahaayeen goobo rayda laakiin waxay leeyihiin Mareykanka hadduu far qaado 5 far baan qaadan anaguna marka garan kartaa meesha xaaladda u socoto agartay mawlida gabagabadii ayaan ku sii dhownahay Iran waxa ay ku jirtaa aaska hogaamiyihii hore waxay ka macna tahay in aysan sugin inta ay soo dhamaanayaan munaasabadaha aaska oo ay isla markiiba ay jawaab ay uga bixisay weerarkii Mareykanka maxamed xalay weerarka Mareykanka markuu dhacay waxaynu sii daynay barnaamij war degdeg ah oo aynu kaga hadlayno duqeynta Mareykanka xilligaasi dad badan oo arrimaha militariga ka faalooda waxay lahaayeen waxa suurtagal ah Iran inaysan degdeg u jawaabin oo ilaa iyo Khamiista inta ay aasayso meydkooda hogaamiyihii sare baroordiiqda ay u dhamaanayso tacsida iyo baroordiiqda ay soo laabayaan inaysan jawaabayn laakiin sida ay u go'aansadeen inay jawaabaan waliba iyadoo madaxweynahoodii taliyaan muhiim oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga IRGC ay joogaan wadanka Ciraaq oo qayb badan oo kamid ah Mareykanku uu joogo sadiga military uu ku leeyahay sirdoonkiisa ay buuxaan waxa uu doon oo ka sameyn karo ragga jooga waxa kamid ah General Ismaaciil Khani baa kamid ah waa taliyaha ciidanka Qudus waa ciidanka qaabilsan kooxaha iska caabinta kuwan Ciraaq jooga ee ay ugu weyntahay kataib Hizbullah iyo Shiicada Hizbullah caadiga reer Lebanon kooxii xitaa Syria joogi jiray inkastoo hadda laakiin laga eriyay iska caabinta Falastiiniyiinta
xuutiyiinta Yemen waa ninka qaabilsan waa ninka ugu sokeeya hadda sawirkiisa halkan ka muuqdo waxa kaloo jooga saraakiil muhiim ah oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga waxa kamid ah taliye ku-xigeenka ciidamada IRGC arrin sahlan ma ahan madaxweynihii ayaa jooga Mas'uud Basijkiyan il iska dhaaf aaska ay ka qayb galaan si fudud baa loo beegsan karaa diyaaradda ay ku soo laabanayaan waa la beegsan karay wax kasta dhici kara laakiin go'aan bay qaateen waxay yiraahdeen Trump soo talaabadan muusan qaadin ha ma sugayna waqti isla markii baanu ka jawaabaynaa waxay sheegayaan ayagu 85 goobood wax sahlan ma ahan inay weerareen oo ku yaala Bahrain iyo Kuwait waxa kamid ah taliska shanaad ee ciidamada Mareykanka ee Bahrain ku yaala waa xarunta ugu weyn ee Mareykanka ee laga maamulo gobolka bariga dhexe kuma taala Israa'iil kuma taala Turkiga oo NATO xaruntiisa ay tahay xarunta ugu weyn gobolka bariga dhexe NATO ah ma aysan sugin meydka inta la aasayo jawaab bay bixiyaan marka waxa leeyahay Iiraaniyiintu karfantooda waa sidoo kale loo yiri ay madaxa ku sitaan arrintaasna marka arrin halis weeye hadalka Trump oo ka garan kartaa carada meeshuu ka joogo iyo sida uusan u garan karin waxa uu sameeyay Iiraanta marka waxay leeyihiin anagu waxaan rabnaa heshiiskii la gaaray in lagu socdo haddii aad ka baxdo aday ku dhibaysaa doorashada Mareykanka way soo socotaa hadda waynu sheegaynaa shidaalkii oo qaariyoobay oo 5% in ka badan ay ku darsantay waa saacado uun kaliya inkastoo maanta weli Mareykanka uu furan yahay Hormuz haddii xaaladdu inta ka sii darto Iiraan waxa dhici karta inay tiraahdo Mareykanka gabahantiis baynu xireynaa dabcan wadamada neetana weli ma aysan ballan qaadin inay Mareykanka garab istaagi doonaan oo ay ka qayb gali doonaan dagaalka taa laftigeeda Trump waxbay u noqon lahayd Spain oo kamid ah NATO isla maanta wuxuu ku dhawaaqay in la joojiyo dhammaanba wax xiriirka ganacsi oo la leeyahay oo wadanka Spain oo wadan kamid ah NATO wuxuu aad u dhaleelay sidoo kale gabadha ra'iisul wasaaraha ka ah wadanka Talyaaniga Giorgia Meloni UK xitaa uu cambaareeyay wuxuu yiri noobaysa oo galaan saldhigyada militariga aan isticmaalno xogaa waxa difaacay madaxa ama xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte oo yiri wadamo badan ayaa ogolaaday oo NATO inaad isticmaasho saldhigyada militariga waxa loo soo qaatay Romania oo kale oo xitaa garoonkeeda xirtay dhowr maalmood oo diyaaradihii laga mamnuucay rayidka sababtuna ay tahay militariga Mareykanka oo isticmaalayay inkastoo laakiin Ingiriiska markii dambe laftigiisu u ogolaaday in diyaaradaha Mareykanka ay isticmaalaan laakiin haddana Trump waxaas uma muuqda dad badan waxay leeyihiin Trump wuxuu uga gol xaaranayaa sidii NATO uga bixi lahaa marka madaxweynaha Mareykanka dhowr arrimood oo kala duwan ayaa haysata arrinta Israa'iil dhinaca weeye waa Netanyahu gudihii Mareykanka waa laga soo horjeedaa doorashada soo socota dagaalka hadii uu sii wado iska dhaaf inuu guuleystay xisbigiisa ayaa waxa la filayaa labada aqal sanadka iyo Congress-ka inay lumiyaan dhankan Iiraan waxay diiday inaba haba yaraatee inay siiso wax fursada waxay ku leeyihiin wixii aad ku weyday xabad iyo qori miiskooda xaajoodka ma ku heli kartid marka madaxweynaha Mareykanka culays badan baa saaran laakiin si uga dabaalanayo isaga jirta asaga loo doorta